marwaadna aadan ayaa ku wareejisay cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa qalab casri ah oo loo isticmaalo suuxdinta dadka qalliinka lagu sameeyo agaasimaha guud ee cisbitaalka magaalada Hargeysa oo isagu ka gudoomay qalabkan Dr. Axmed Askar ayaa uga mahadnaqay marwaadna aadan qalabkan casriga ah ee ay ku wareejisay cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa iyo tababarada la siiyay dadka ku shaqeyn doona iyo kuwa kormeeri doona intaba qalabkan hore ayaan anigu warkiisa u hayay oo aadna ii siisay inay ku dadaalka ku jirto oo ay soo wado waxa kale la socday wasiir ku-xigeenka la socday wasiir dawladda la socday oo isna ilaa maartay intii tababarka iyo hawsh socotay iyo mashiinadu imanayeen la socday runtii qalabkani waxa weeyaan qalab tayo leh waxna ka tari doona isbitaalka xagga qaliinka iyo sidii loo badbaadin lahaa dadka maartay naftooda ay halista ku jirto wasiir dawladda wasaaradda caafimaadka ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Aadan Jaamac Galaal oo isna munaasabadan ka hadlay ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay dadaalka badan ee adna aadan guud ahaan ay u gashay daryeelka caafimaadka bulshada iyo qalabkan ay ku wareejisay isagoo sheegay inuu wax badan ka tari doono hawlaha adeegyada caafimaadka ee looga baahan yahay waxaanu sheegay in qalabkan yahay mid qiimo weyn ku fadhiya una baahan in aad loo ilaaliyo waa mishiinkii sideedaad qalabkii sideedaad ee suuxdinta ee wasaaradda caafimaadka Jamhuuriyadda Soomaaliland la wareegto waxa sababay oo dadaalka ka soo shaqeeyay Dr. Adna Aadan runtii waxaan oran karaa Dr. Adna Aadan waa qaniimad Ilaahay ku manaystay Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dadka Soomaaliland qalabku waa qalabka aad aragtaan horena la idinku sharaxay waa qalab aad u qaali ah waa qalab qabanaya shaqo ay ku xidhan tahay qof bini aadan naftiisa qofka waa la suuxinayaa mas'uuliyad weyn iyo inaga saaran aad anaga waxana loogu ballamiyay qalabka qof aan afgaranaynin ama tababar aan lagu siinin yaanu taaban waxaan halkan ka cadeynayaa inay wasaaradda caafimaadka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay aad u ilaalinayso qalabka sidoo kale waxa isaguna halka ka hadlay Dr. Robert oo kamid ah dadka ajaanibka ah ee ka shaqeeya cisbitaalka Hargeysa oo sheegay inuu qalabkan wax badan ka tari doono hawlaha dhinaca qaliinka marwaadna aadan ayaa ka warantay faa'iidooyinka qalabkan uu leeyahay iyo heerka aqoonta dadka qalabkan ku shaqeyn doona tababarada la siiyay heerka ay gaarsiisan yihiin waxaana hadaladeedii kamid ahaa waxa farxad weyn noo ah inaan mudane wasiir iyo mudane agaasime aan idinku soo wareejino makiinad dadka lagu suuxiyo marka qaliinka loo sameeyo makiinadanu waxay ku timid mar aanu anagu helay mid taas oo kala ah oo cisbitaalkiga laga shaqeeyay ayaan runtii u qushuucnay makiinadaas sida wanaagsan ay u shaqeyso iyo sida ay u fududahay in dadkan loogu shaqeynayo in wax loogu qabto waxay nagu qaadatay muddo intaana waxaanu tababaraynay suuxiyayaasha waxaa mudane wasiir ku tababaran 10 ka soo baxay Boorame iyo 21 ka soo baxay cisbitaalka Adna intaasuba way ku tababaran yihiin hawsha suuxiyaha waana ku tababaran yihiin qalabka maanta lagu soo wareejinayo